واي أصل بو حايدا وهذا قد ما تي أن كلا دمنا هذا يعني الشيء ما شيء كم شيء سبب أي كاي مر بابا رجع لو حياة مر بابا صور كذا يلا ما شيء هاي شيء ما داسبته أدات كيك أجانا وحسيت أنا يسوق سعد بسبب الدون كبادي يقول جوب تودان أنت أدي هاي شو ده خوف دان دنا إيه ماني أنا إيه بحبنا إيه ترى هاي هذا أنا عابم كوسو جدي ملها أنا كبحنا هاي قف دوجنا هاي هذه أديك أدرين سنت هاي أو أديك أدو فكر إنسان كو أيه مرة بابا أديك هذا بالي بابا مرة هذا صور كذا دكتي مرة هذا ده قواد بس هاي عابتان كوسو جدي أديك محيطها أديك النفس ده هان تعال عابتان كوسو جدي محيطها أنا كبحنا هاي أنا قال هاي ونفس ده أنا وهاي لكن أديك النفس ده هان تعال وحن كوجو عيبي براني قداد عسي ما فاهم سنيب waxa adina sadad adi yeeshay oo soo binaysa بس كوجو عيبي أديك كلا شخص بقى من هاي هاي يعني كلا شخص يعني هاي كلا شخص يعني هاي يعني أديك وحي أديك واحد أديك جيسته أي عيب كو إيمانيسا لكن أديك واحد أديك جيسته سيدا عيب كو إيمانيسا أديك أنا نفس ده نفس أنا هاي نفس ده هاي يعني نفس ده محاكم يمسن dadkaas ku dhahayo waad wiilkaagu ku ceebay ma aniga nafsadeeda kama himsan hooyo oo aniga ma dhalin miya adiga waan ku dhageysanaya waan ku maqlaa hooyo aniga waxaan daday wali qaba in baan qaba intaas sanadii qadi meel sawir kaada yaala dewarun hooyo taas waarun hooyo gabdhahaada waa la qabaa wax ka dugan taas waxay ka dugan tahay ma lahan ani caaban ku ceebeeyay ma lahan wadiya manin baa la qabaa manin la qabaa dawal ha shan sibate waxa ma bani ee kormood waan ku kormood ah oo shansi waan hay asal ma waan ka dhintay babaay washeesi waan hay duyus baan hay wax walba waan hay ay baan hay wax walba hal igu sheegay aniga waad ceebeysay laad aniga waxaan kugu ceebeeyay oo aniga adan kugu ceebeeyay bar ii sheeg aniga taas waan garan lahay adigu waxa kugu muhiimsan adiga hooyo ahaantaad waxa adigu kugu muhiimsan dadkaas ku dhahayo waa ceeb waxaas oo adiga waxa adiga nafsad ahaantaad aad dareemayso ayaa adiga ii ka muhiimsan adiga idashay waxa ka muhiimsan waxaas dadkaas ay sheegayaan kaaga muhiimsan niman way isqabaan meel walba dunidan maanta la joogo niman way isqabaan way isla xiriiraan way wada joogaan asal buu xaq yiraahdo waan ka dhinto hooyo waan kala dhimanay qabrigaaga dhimi imaanayo anigana hay sheegan warigaaba sidaas waxaad ii soo tartan malaha horta ma been baa lagu sheegay wali anigu waan iska joogay dunida waan iska joogay ma ahana waad i keento ma ahana wax bin aadan oo loo taro uwadkiis loo taro oo ii tartay aniga mala been baa la isku sheegay ya meeshaas aniga li qaraac jiray dil jiray oo iskuulka liga soo ceeran jiray waxaad iga ogeed ilaahay unta mala maraamirsinyadaadu wuxuu ahaa adiga hooyo ahaantaadan ku sheegay maraamirsinyadaadu wuxuu ahaa inaad adiga dhahdo uwad kala raacaysaa koleeto waxaan kugu daalaya mala ya oo adiga markaad ilmaha dhalayso intaas ilmaha dunidan keenaysa ya mise aniga aad keenaysay miya adiga go'aan mi ila tashata aniga dunidan markaad keenaysay markaad leedahay waad ceebays aragtan ku keenay maxay tahay wadadkan miyaad isfahmaynin Soomaali maxaa naga dhigay aniga Soomaali Maxamed maxaa naga dhigay waad ceebaysay leedahay ana maxaan kugu ceebay aniga waxa adiga kugu ceebay maanta oo adiga aan nafsada ahaantaada kugu ceebay bar ii sheeg qorbeen maal isku sheegay hooyadan aan ku sheegayo gabadheeda intay iskuulka bixisay bay gabar kale oo ayada dhashay ee shaqaale uga dhigtay oo mar walba gabadheeda kale markay soo kharaacdo madaxa ka kharaacdo gabadha kale ee ka soo carootay ee guriga imaatay waxay dhihi jirtay hooyoy aniga haddii aad gabadha walaashaada aadan magaceeda aad ka soo carootay mise ka soo tagtay ani ha sheeganin ku laabo mar walba gabadha kale ee la joogtay madaxa ka qaraaci jirtay iskuulka laga bixiyay ee shaqaale u ahayd ee guriga subaxda say u soo kacday la sayday ilaa ay habeenkii ee guri uga shaqayn jirtay
marka dambena waxay ku qalabtay nafsad ku qalabtay gabadha ayada inay ka cararto walaashan inay ka cararto nin oday oo marka adiga 40 jir ayadoo ilmo yar inay guursato ay ku qasato nolosheeda alxamdulillah shukr maanta ilma meesha ka waday 9 ilmood u dhashay ilaahay u daay waa hooyo lagu sheegay Soomaali been maal isku sheeg waxa lagu leeyahay hooyada waxba hooyo waa tii ku dhashay hooyo iska dhalmiya hooyo tii ubadkeeda ilaaliso ubadkeeda korsato ubadkeeda wax u qabata ma ahayn Soomaali hadana oo ubadkeeda ogaata har iyo habeen hooyo umaalile hooyo way ku dhashadaas miya xaq kugu leedahay asal baan iska kala dhimana waxba yaan is sheegan aniga weligeyga dunida markaan inta aan joogay ilaa hadda waxaan dareemi jiray inaan qofna iga dhalan aniga qofna inuu ila dhalanin qof inuu i dhalan dunidan kaliya inaan ahay ayaan weligey dareemi jiray waxaan aniga aan ahayna waan ku dareemi jiray hooyo sama hadda waa nooshahay waxaa la dhihi jiray oo la hooyo naxdin bay u dhimanaysaa waa nooshahay hadda waa taas ila murmaysaba geeradaadana ma imaanayaan is sheeganin caasi samaa caasi kii ugu darnaana aniga naar samaa naarta kii ugu kullaa angalo been baa la isku sheegi waxaa iga hanaajiyey maanta wayna ogeyd inaan duubaa codkeeda inaan duubaa way ogsooneed way jartay telefoonka ayadaa igu jarta igu jaraad sheegayo telefoon dambana ha iga qabanin aniga waama nisanayaaba waama idinkaan iga nisanaya inta rafaadkiina iisoo sheegi jirteen maalin walba aad igu bari jirteen hooyo lacag male lacag iisoo dir kan baa saasa kuus baa saasa guri maxaa u dhisilaada heblow baa saasa sidaa yeel aad idhihi lahaadeen baaban iga reesanaya idiga reesanaya waxaad ii sheegaysiin mala awooddeedana halkan ku imaaday awooddeeda maanta aniga aan sidan heerkan aan gaarsan aan soo gaarsiiyey awooddeeda maanta aniga aan ku noolaa qof nafsi qof oo aniga familigeyga aan wax ka sheegto ilaahay unta mala banaankaas weeweenta dunidaas weeweenta dib ha loo kala maro ya beentaa la isku sheego meera hooyo waa wiil baariyaan ahaa aniga waan baari baan ahaa gabar baan guursanaya gabar baan wax beentaa in la wado umeera weligooda waxba yaana aniga been liima sheegayo koleeto waa daawatay klibyadeena klibkeena inaad daawato waad arki doontaa maanta wixii ka dambe xor baan ahay xor waxaan ka ahay familigeyga ya niyadeyda hadda wallahi waxay waan careysana waxaan ku careysana hooyooyinka Soomaalida aan u careysana inaan ka sheegay halkan Mariwi laakiin gabar baa shalay iska ooyneysay hooyadeeda sida u soo gashay iska ooyneysay waa hooyaa lagu leeyahay gabdhihii bay ku shaqaysanayaan shaqaale ka dhigaan gurigii wiilashii baa sida boqorinta intay jeeftaan sariiraha cuntadii ay karin wiilashii gurigii dharkii u dhaqi ya gabadhina waxay ka tahay gurigaas mala waa iska shaqaale hooyada waxay idii jirtay mar walba idii jirtay gabdhahaas iskuulka ee aadan ya nimankooda way diyaarsan yihiin alaabtooda way gadan yihiin may alaabtooda dukaan bay yeelaan hore markay ka guursadaan alaabtooda wax walbo nin baa hore u soo shaqeeyey oo bas adiga ya sigaar baa tuugan kartaa baa tuugsan doontaa maadaama aad iskuul aadaynin iskuulka waxaan u aadaynin koleeto way iska dhigatireys iskana indhatireys weligeeda kulligood waa lagu blaameka waa mu adiga qaladka adaa leh hooyo waa garteed baa lagu leeyahay garteeda maxay tahay hooyo hadday dhulkaas ugu hilmaantay waxba aysan kaa ogeen ilaahay untay ka ogtaa aysan jirin waan ooyay ku leedahay haddaad ooysan ani meeqaan ooynay haweeney dadaar baan ooynay oo ani aabba la'aan u ooynay hooyo la'aan u ooynay walaal la'aan u ooynay ciilkii hayaan u ooynay ilmo idileen u ooynay caydil iyo caynaan u ooynay ya ma ooyin baa wax la iskaga qaaday calool xumada la iskaga qaaday war waxaad ii sheegaysiin mala ilaahay ma geeridaad ma berit imaato geeridaad berit ma imaato sidan had waaba iga dhimatay geeridaada sidan baabay tahayba iga dhimatay waad iga dhimatay telefoonkeygana ma haysid bakan waa kii shaqada hana iga soo wicin haddii aad iga soo cadan kaama qabanayo
ma run baa laisu sheegin sabaan blog baan ku saaray had sida aad ii soo bixin raadi ceeysay kuleed maxaan kugu ceebay aniga maxaan kugu ceebay adiga aan kugu sameeyay adiga maxaan kugu sameeyay kala shakhsiyana laba qof oo kala shakhsiyana noloshaada adiga waxaad adiga galabsaday aniga hadda maanta haddaan wax galabsado oo dadka ay fiiriyaan ceebta aniga aan galabsaday ayaa ceebe adiga ceebtaan ku keenay maxay tahay mise dadkaas waxay dhahayaan dadka bini'aadanka waxay dhahayaan ba adiga kaa muhiimsan wiilka adiga dhashay oo 9 bilood caloosh ku soo wada koleet waxaad iga ogsooneed ma lahane hooyo bambaano hooyo aan jirin ilmo markaan dheeli jirna aan la dheeli jiray baa gurye la dheeli jiray ninkayga waayo ilmahayga waayo beentaas ayaa aniga aan ku dhashay kuna soo koray wax liiga ogsoonaana mala bambaal isu sheeg war caasi maahana waxa doontiin igu sheega waxa aad doontiin igu sheega bye bye